xaflad si heersare loo soo agaasimiyay ee ka soo qayb galeen bulshada qaybadeeda kala duwan ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika taasoo lagu taageerayay dawladda cusub ee Soomaaliya iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. sidoo kale xafladan ay soo qaban qaabisay beesha Jareer Weyne ayaa lagu caleema saarayay gudoomiye cusub ee beesha yeelatay iyadoo xafladan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay beeshaasi oo u hogaaminayay suldaanka beeshaasi. hogaanka cusub ee yeelatay jaaliyadda Somali Bantu Community in South Africa ayaa gudoomiye loo caleema saaray Maxamed Faarax Siidow Arbo oo loo yaqaan Shariifka iyadoo uu qayb ka noqonayo dadka u dooda xuquuqda Soomaalida Koonfur Afrika. munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha Jareer Weyne ee South Africa Suldaan Ibrahim Maxamed Cali oo loo yaqaan Qaxwo isagoo caleema saaray gudoomiyaha Somali Bantu Community ee South Africa. lagu dhibay waxaan ka codsanayaa in aad diyaar u ahaatid u dhawr adeegtid dadweynahaagii ama dadkaagii si daacad ah u shaqaysid taleefankaagina haddii uu hal batri lahaa inaad laba batri gelisid oo dadkaas ay ku helaan. waxay jaaliyadda Soomaali Bantu ballan qaadaysaa inay la shaqayn doonto urur walba ama hay'ad walba oo doonaya horumarinta habsami socodka iyo hanaanka horukaca dib u dhiska iyo horumarka dalka iyo dadweynaha Soomaali weyn haba ahaatee in mutadawacnimo lagu shaqeeyo. waxaan kaloon hambalyo iyo soo dhaweyn u diraynaa haddii aynu nahay jaaliyadda beesha Jareer Weyne Western Cape ra'iisul wasaaraha cusub ee nala soo magacaabay ee dawladda federaalka Mudane Saciid Cabdi Garaad. waxaynu leenahay nin xil qaad sida magacaaga uu ku xusan yahay Mudane Saacid waxaan ka codsanaynaa in aad ummadaada aad ugu shaqayso midnimo cadaalad taasoo maaragtay dawladda Soomaaliya ay noqon doonto mid cagaheeda isugu istaagto. si kastoo ay ahaataba Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxay mar walba taageeraan horumarka dalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Axad, telefishinka qaranka, Cape Town, Koonfur Afrika.